بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaynu ka warramayna insha allahu tacaala darsigeenan soonka waxyaabaha jabiya ayaynu ka warramayna. waxyaabaha soonka jabiya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu sheegay waxyaabaha la cuno iyo waxyaabaha la cabo iyo dumarka oo lala mucaamaloodo oo jimaac iyo galmo markaasi loola yimaado maalinta Ramadaan. saddexdaa arrimood kitaabka quraanka inoo tilmaamay. saddexdaa iyo waxyaabaha la xiriira soo hosgelaya sunnaha rasuulku sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ee soonka jabinaya ayaynu insha allahu tacaala aynu markaa tilmaami doonaa. waxaa ugu horeeya waxyaabaha soonka jabiya cunitaanka ayaa ugu horeeya, al-akl. waxaa kale iyagana soonka jabinaya ashurb oo ah iyaduna cabitaanka oo shayga labaada. ilaahay baa wuxuu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr uma atimu asiyaama ila alleyl. cunitaanka iyo cabitaanka ayaa halkaas lagu sheegay waaga dilaaciisa laga bilaabo ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo inaan waxna aan la cunin waxna aan la cabin. soonka micnihiisuna waxa weeyaan inuu qofku wixii soonka ka jabinayay uu iska ilaaliyo markuu waagu u dilaaco laga bilaabo ilaa iyo inta gabalku uu ka dhacayo. kaasaa la yidhaahdaabaa markaasi soon, weliba niyaduna markaasi ay raacdo oo ay la socoto oo qofku uu niyoodo. marka cunitaanka iyo cabitaanku haddii uu yahay ogaan qofku hadduu wuxu cuno waxna uu cabo soonkiisi waa uu jabaya waana uu ku dambaabaya. waxaana laga doonayaa maalintaasi inuu qalayaa laga rabaa isagoo ilaahayna u toobad keenaya subxaanahu wa tacaala. laakiin haddii uu waxa weeyaan wax cuno waxna uu cabo isagoo is-ilowsan amaba aan garanayninba soonka inuu jabinayo ay xaaraan tahay aan garanaynin, soonkiisa waxba noqon maayo oo soonkiisa sax weeyaan. rasuulkan inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam man nasiya wahuwa saa'imun fa akala aw sharib. qofka isagoo sooman is-ilaawa dabeetana waxna cuna sidoo kale wax caba wuxuu rasuulku yihi falyutima sawmahu. qofkaasi soonkiisa ha dhamaystirto fainamaa acamahu allahu wasaqaahu. ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey uhun. marka qofkii isagoo ogaan wuxuu cunay soonkiisu waa jabaya, yacni isagoo og inaanay banaanayn oo ay xaaraan tahay, is-og aan is-ilowsanayn, aan lagu qasbin. qofkii caynkaasi waxa weeyaan wuxuu cunay waxna uu cabay soonkiisu waa jabaya. laakiin qofkii is-ilowsanaa isaga soonkiisii waxba noqon maayo waana dhamaystiranaya maalintaasi, qalana markaasi laguma laha. laakiin haddii isagoo afka ku haya uu xusuusto cuntadii ama biyihii intaa uu afka ku hayo uu iska tufi doonaa, liqi maayo. sababtoo ah hadduu liqo waxa uu ka dhigan yahay isagoo xusuusan markaasi inuu liqay oo uu cunay ayuu ka dhigan yahay, dabeetana soonkiisa waa uu ku jabaya. waxyaabaha kale soonka jabinaya waxaa ka mid ah ee macnaha la macno ah cunitaanka iyo cabitaanka. waxa weeyaan shay kasta oo caloosha gaadhaya ama dhuunta gaadhaya oo meeshii doonaba laga qaatay. sanka hadda wixii laga qaadanayay ee saa caloosha ku tegay isagoo soonka waa ku jabaya. rasuulku wuxuu yihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman. waxaad ku xeeldheeraataa sandaarsiga ku xeeldheerow adiga oo sooman mooyaane. yani haddaad sooman tahay iska ilaali ha ku xeeldheeraanin. waxaa laga yaabaa inuu markaasi qofku ku baxsado oo uu weydaarto oo sidaa uu dhuuntii amaba calooshii ku taga ayaa laga yaabaa. waxaa kale iyaduna waxyaabaha soonka jabinaya ee macnaha cunitaanka iyo cabitaan kale irbada loo yaqaano glucosta ama sayloonka ee halkii cuntada iyo halkii markaa cabitaanka gelaysa. hadda qofka lagu rakibo qof sooman hadda markaasi waxa weeyaan irbadaasi la siiyo iyadana soonkii waa uu ku jabaya. laakiin halka waxaa ka duwanaanaysaa irbada qofku xanuun jabinta ah ama xumad jabinta ah ee qofku qaadanayo amaba loo qorayba uu dabada ka qaadanayo barida amaba uu gacantaba ka qaadanayo ama xididka, taas iyadu waxba yeeli mayso oo soonkiisa waxba ku noqon maayo. laakiin taa kale ee glucose-ka qofku jirkiisii uu kaga maarmayo waxa weeyaan cuntadii kaga maarmayo iyo sharaabkii, taasi soonka waa uu jabinaya. waxaa kale iyadana la macno ah ama la mid ah taasi qof sooman haddii dhiig lagu shubo iyadana soonkii waa uu ka jabaya. sababtoo ah dhiigan lagu shubay quwad iyo awood buu siinayaa
halkii cuntada iyo halkii cabitaanka ayaana u gelaya. waxyaabaha kale iyadana soonka jabinaya waxaa ka mid ah jimaaca iyo galmada. ninku inuu maalintii rabadaan gabadhiisa u galmoodo oo u tago iyaduna markaasi waa xaaraan, waana la diiday. qofka hadduu caynkaa sameeyana waa uu ku dambaabayaa, toobadna waa laga doonayaa, maalintaasna waa uu qallayn doonaa. welibana isaga waxa u raacaysa intaasi oo qallahaasi ziyaado uga ah oo dheeraad uga ah inuu bixinayo kafaaro. kafaaraduna waxay noqonaysaa 3 arrimood kala horeeya. waxa ugu horeeya adoon inuu xoreeyo. haddii adoonka xorintiisa uu waayo 2 bilood oo isku xigta inuu soomo. hadduu taa iyadana kari waayo inuu 60 miskiin uu quudiyo ayaa ay noqonaysaa. 3 arrimood kala horeeya oo aan markaasi mid kaliya aan ahay oo aanu kala dooranaynin oo kala horeeya saa ay tilmaano kala horeeya ayaa laga doonaya. marka adoonka ugu horeeya hadda adoon ma jiro, laakiin labada kale ayaa marka kala horeeya waxay noqonaysaa 2 bilood isku xigta inuu soomo ayaa laga doonaya. hadduu taa kari waayo ay ku adkaato ayaa waxa imanaysa inuu 60 miskiin uu raashin siiyo. midkiiba wuxuu siin doonaa kiilo ama waxa weeyaan wuxuu dhigma mid cunta ayaa uu siin doonaa. waxay halkaas iyadana la macno oo soo gudagelaya ama soonka iyadana ku jabaya qofka oo manidii isagoo soo jeeda isa keena ama gabadhiisii oo la baashiro ha noqoto ama siyaabo kale oo markaasi uu ku keenaba ha noqoto haddii uu manidii iska keeno iyadana soonkiisii waa uu jabaya. laakiin isagoo hurdo oo seexday haddii uu riyoodo deetana manidii ay ka timaado soonkiisii waxba noqon maayo. waxyaabaha kale soonka jabinaya waxaa ka mid ah hunqaacada. qofku haddii uu iska hunqaaciyo soonkiisii waa uu jabaya. laakiin haddii ay ka xoog badato hunqaacadu ay soo qaado soonkiisii waxba noqon maayo. rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri man daracahu alqay fala qadaa calayh. qofka hunqaacadu ay ka xoog badato ay soo qaado waxa weeyaan qofkaasi qala laguma laha. micnaheedu waxa weeyaan soonkii kama jabin weeyaan. waman istaqaa falyaqdi. qofka iska hunqaaciya marka waxa weeyaan ha qaleeyo bimacnaa soonkiisii waa uu jabay weeyaan isagana. marka qofka hadduu iska hunqaaciyo sidoo dhan waa iska hunqaaciya ama cadayga ha isticmaalo oo marka cadayga afka hore ha geliyo ama farta oo kale ama shay marka qarmuun oo uursado dabeetana sababay inuu markaas wax weeyaan hunqaaca ha noqoto. dariiqadu doona iska hunqaaciya hadduu iska hunqaaciyaba soonkiisa oo jabaya. laakiin hadduu ka xoog bato uu qaban kari waayo oo sidaa uu kusoo dhaafo uu ka awood bato iyada soonkiisii waxba noqon maayo. kuyaga noocaasiya ayaa iyagu waxay yihiin waxyaabaha soonka jabiya ay tahay qofku inuu markaasi ka digtoonaado iskana ilaaliyo. intaasaan kusoo gebagabeynayna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.